isku aadkii wareegga 16 Champions League oo la soo saaray. Kooxaha isku aadka wareegga 16 Champions League ayaa waxay iskugu beegmeen sida tan. Kooxda Club Brugge ayaa waxay ku beegantay kooxda Aston Villa. Kooxda Borussia Dortmund waxay la ciyaari doontaa kooxda reer France ee Lille. Kooxda Real Madrid oo waddanka Spain ka dhisanna waxay la ciyaari doontaa kooxda isku magaalada yihiin ee Atletico Madrid. Bayern Munich oo waddanka Germany ka dhisanna waxay la ciyaari doontaa kooxda Bayer Leverkusen oo isku waddanka ay yihiin. Kooxda Dutch-ka ah ee PSV Eindhoven waxaa lagu aadiyay kooxda reer England ee Arsenal. Kooxda Feyenoord oo Dutch-na waxay ku beegantay kooxda Inter Milan waana kooxda kaliya ee Talyaani ah ee ka socota wareegan maadaama ay kooxihii kala hareen. Kooxda PSG-na waxaa lagu aadiyay kooxda Liverpool markii ugu dambeysay ee labadan kooxood isku aadaanna waxay ahayd 2018 markaasna Old Way waxaa koob ka qaaday kooxda Liverpool. Taariikhda kulamada la ciyaaray wareegga 16 waxaa la ciyaari doonaa lugta koowaad 4 ilaa 5 Maarso. lugta labaadna waxaa la ciyaari doonaa 11 ilaa 12 Maarso. Isku aadka wareegga 8 waxaa wada ciyaari doona kooxda guuleysata kulanka PSG iyo Liverpool waxay la ciyaari doontaa kooxda soo baxda kulanka Club Brugge iyo Aston Villa. Kooxda guuleysata kulanka PSV iyo Arsenal waxay wajihi doontaa kooxda soo gudubta kulanka Real Madrid iyo Atletico Madrid. Kooxda guuleysata kulanka Benfica iyo Barcelona waxay la ciyaari doontaa kooxda soo baxda kulanka Borussia Dortmund iyo Lille. Kooxda guuleysata kulanka Bayern iyo Bayer Leverkusen waxay is arki doonaan kooxda soo baxda kulanka Feyenoord iyo Inter Milan. Haddaba taariikhda la ciyaari doono quarter finalka. lugta koowaad ee quarter finalka waxaa la ciyaari doonaa 8 Abriil ilaa 9 Abriil. lugta labaadna waxaa la ciyaari doonaa 15 Abriil ilaa 16 Abriil. Sidoo noqon doona isku aadka semifinalka. kooxda guuleysata kulamada PSV iyo Arsenal ama Real Madrid iyo Atletico Madrid waxay la ciyaari doontaa midkood kooxaha soo guuleystay kulamada PSG iyo Liverpool ama Club Brugge iyo Aston Villa. Dhanka kalena kooxda guuleysata kulamada Benfica iyo Barcelona ama Borussia Dortmund iyo Lille waxay la ciyaari doontaa midkood kooxda soo gudubta kulamada Bayern Munich iyo Bayer Leverkusen ama Feyenoord iyo Inter Milan. Taariikhda la ciyaari doona semifinalka. lugta koowaad ee semifinalka waxaa la ciyaari doonaa 29 Abriil ilaa 30 Abriil. lugta labaadna waxaa la ciyaari doonaa 6 May ilaa 7 May. Finalka Champions League 2025 waxa uu ka dhici doonaa garoonka Allianz Arena ee kooxda Bayern Munich marka ay taariikhdu tahay 31 May. Waxaa weli harsan kulamo badan oo xiiso leh ka hor inta aan la gaarin finalka, iyadoo kooxaha ugu waaweyn ee Yurub ay haddan adag ugu jiraan hanashada koobkan.